howlka weyn ee hotel cabdicasiis buurtile waxaa maanta ka qabsoomay munaasabadda caleemasaarka nabadoon maxamed cali shire xirsi oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed waxaana munaasabadda caleemasaarkiisa kasoo qayb galay nabadoonno xuqaal waxgarad aqoon-yahano haween dhalinyaro qurbajoog iyo bulshada qaybaheeda ugu horeynaya nabadoonnada iyo waxgaradku waxay golaha dhaqanka iyo bulshada soomaaliyeed usoo bandhigeen nabadoon maxamed cali shire si ay ula qaataan iyagoona sidoo kale la dardaarmay inuu duceeyey. ممزوجة محلة بالابتهاج والارتياح تحية أحلى من العسل وأغلى من الذهب ألا وهي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام قيمة يا شرف بدن كدب waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qadarinta mudan ee ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka nabadoon maxamed cali shire xirsi. waxaan gudagelaynaa haddii alla idmo xafladdeena gudagelaynaa waxaan ku furanaynaa wacdiga iyo waanada iyo qur-aanka kariimka ah oo inoo soo jeedinayo haddii alla idmo sheekh cabdinaasir cabdullaahi signal falyatafadal mashkuura. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafka ka soo qayb gashay xafladan caleemasaarka nabadoonka
maxamed cali shire xirsi nabadoonnada isimada dhammaan ka kala yimid beelaha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaantaa kadib walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay shir ma jiro shir hadduu jiro inuu laga helaa saddex waxyaaba dikra shir khasaaro noqonaya laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaah fasawfa nu'tiihi ajran cadiima ilaahay subxaana watacaala walaalayaal wuxuu leeyahay faq ama shir ma jiro haddii kale wuxuu noqonayaa khasaara shirkaas haddii laga waayo saddex arrimood iyo arrinta ugu dambeeda afaraad aan sheegi doono ilaahay wuxuu leeyahay maa yakuunu min najwa ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii kathiirin wax fara badan ma leh oo shirar ah laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqa shir dadka lagu farayo sadaqo in lala baxo sadaqadaasoo dalka iyo dadka iyo diintooda lagu horumarinayo kow inuu mid yahay shirku ow amrin bilmacruuf in la isfarayo wanaag dadkan xumaana laga reebayo wanaagna la farayo aw islaaxin bayna annaas dad muslimiina oo isqabtay ama qabaa'il ha noqdo ama dad maarata afraada ha noqdee oo dhib ka dhex dhacday lagu heshiisiinayo oo lagu islaaxinayo waman yafcal dalika ilaahay wuxuu daba dhigay qofkii sidaa sameeya oo saddexda arrimood shir ku saabsan sameeya isagoo u samaynaya ilaahay dartiis ma aha ha lagu ammaano ha lagu faaniyo ha lagu sheegsheego ma aha ilaahay dartii u samaynaya waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaah fasawfa nu'tiihi ajran cadiima waxaan saynaynaa baa ilahay yidhi waxaan siin doonaa ama siinaynaa ajar aada u weyn marka sidaa daraaddeed waxaa kale ilaahu leeyahay ha laga helo ummadda muslimiinta waxaa la rabaa in laga helo dad wanaagga faraha ummadda tan shacaarkeeda ama calaamada guud oo ummadda nebi maxamed lagu yaqaano waxa weeye ummadda nebi maxamed shacaar waxa u ah inay dadka farato wanaagga xumaantana ka reebto dadka wanaagga fara xumaantana ka reeba marka dadka hadda meesha isugu yimid waxa weeye waa dadkii ahlulxalli walcaqdi la ohan jiray nabadoonadii isimadii waxgaradkii aqoonyahaankii culummadii dhammaanna way ku dhan yihiin meesha marka ilaahayna wuxuuna farayaa inna laga helo dad wanaagga fara waxaan isfaraynaa ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa iyo wanaaggaan isfaraynaa waxaan iska reebaynaa wixii xun ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa dadkii soo abaabulay madashatan oo maaragtay lagu calaamasaarayo nabadoon maxamed cali shire ilaahay subxaana watacaala inuu ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana ugu daro waxaan kaloo ilaahay uu weydiinaya subxaana watacaala waa ciid baa lagu jiraa ciiddu waxa weeye farxad gaaray leedahay farxadda nabadoonka iyadoo farxad tahay ba haddana waxay soo waafaqday farxaddii ciidda oo farxadda ciidda nebigu wuxuu yidhi waxaan galnay hadda shalay waxay ahayd ciidul adxa maalintii koowaad oo tobankay ahayd saddexda ka dambaysana nebigu wuxuu yidhi ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi caza wajalla maalmaha mina ayaamu tashriiq baa la yidhaahdaa waa maalmaha uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalmahaasu waa maalmaha hilbaha iyo cuntada iyo cabitaanka iyo dikriga ilahay in la weynayo oo la xuso marka ilaahay subxaana watacaala waxaan isu dardaarmaynaa in ilaahay subxaana watacaala nabadoonka ay beeshu soo dooratay reer jaamac aadan ilaahay subxaana watacaala inuu maaragtay barakeeyo ilahay inuu ku garab galo xilkaa loo doortay nabadoonnimaduna waxaad ogaataan magacaasu magac weyn weeye nabadoon macnaha nabad buu raadinayaa 24 saac hadduu gurigiisa ka raadinayo iyo hadduu guri kale ka raadinayo labadaba waxaa la rabaa mar kasta qofku inuu isxil saaro ilaahna kaga cabsado oo la isweydiinayaa qof kasta mas-uuliyaddii la saaray waa la isweydiinayaa yowma alqiyaamaha iyo adduunka labadaba marka waxaan u dardaarmayaa nabadoonadu in ilaahay subxaana watacaala kulligeen in ilaahay ka cabsano gaar ahaan nabadoonada iyo isimadu iyo dadka madaxda u ah qabaaisha inay si gaara uga qabsadaan maanta xilliga lagu jiro waa xilli aad iyo aad u dhib badan oo laga yaabo waxyaabo fara badan oo adduunka oo mashaakil fara badan inay kusoo wajahdo mashaakilsanaasna waxaa looga bixi karaa qofku inuu rabbi subxaana watacaala u laabto inuu saburo oo dulqaato inuu wax badan xeeriyo inuu wax badan maaragtay isu keeno wax badan inuu u dulqaato uusan ku degdegin waa wax badan lagu xallin karaa marka ilaahi subxaana watacaala madasha hadda hadal badan uma baahna waxaan ilaahi ka rajaynayaa subxaana watacaala inuu madasha shirka waa gunaanadkii ugu dambeeyey waxaan malay mudday soo xalinayeen ama mudday kusoo jireen maanta waa caleemasaarkii ilaahi subxaana watacaala inuu nabad noogu dhameeyo nabadoonka iyo beesha iyo dhammaan ummadda timidna ilaahi subxaana watacaala inuu aqbalo
وإلهي دعاءنا أقبله مرجيني إن شاء الله تعالى نفتي ذاتينا ونحن دردارنا الله كعبسك سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هوناتيو كان وعدي أيوة أنت أرنوس وجيسان الله نوام فوق كل قاتنا أو ولاينا الله نقبله مرحلة بعد عن أمهات علينا يا كسوق بقلياش حفلة قيمها بدن ماذا له كرام له علينا سؤال جيبي دانا سؤال جيبتين كسوق بقلكينا هي احترام كي haddana waxaan ku soo dhaweynayaa abwaan codsaday wacdiga inuu ka dambeeyo wax yar awaanadiisa soo qaata abwaan xasan cabdi yacquub falyatafadal mashkuura shirkada ku dhooda furay iyo mudanka loo duubay reer jaamac wada doortay oo dhabuudiyaafeeyey dugsigii ilayskaan fadhina damaca loo joogo dugsigii ilayskaan fadhino damaca loo joogo ninkii taladaa soo dubi lahaa duugiiyo hanaanka ducadow kuwiya waxaan hubaa daraja gure duqowdiyo waxgaradka iyo degmada culimo diinkoo dhan faatixada dayrka uga dhiga daawo iyo khayrka faatixada dayrka uga dhiga inayna daaweyso haddaad doorateen daaroodna waa idinla doorteene haddaad doorateen daaroodna waa idinla doorteene baalaha ka xigay beydka gudihiisa abubakar sidiiq iyo imamadii baariga ahaayee cumar binu khiddaab yaan mar kale sii baliidiyey badbaadadii rasuulka iyo asaar bixintinkeediina kumbaroor fardaha guuda iyo 10 birgeed ciidan iyo urro baalaha ka xigoo baashaha ilaa 500 saraakiila oo barashadeedii leh intaasoo ramadaan bixintintay oo baraka iimaan leh baran weerarkii reer makaad badihiis dhibeen waa burburaya islaan beledka diilbaqadilaankii sidii bm dhacay yaa xaqii loo bayaamiyey sawtkii bilaal baa adimay oo bulshay dhagihiiyo jahaadku waa badnaayey waa fadxiga boholyaadiisii wax miyiga u baxay khaalid oo boorakii gubaye allah boqora guushiina way boqol jibaareene markay badii islaameen kufrigu oo la baray diinta inuu baari nabigeenu yahay beerka naxariista khaniimadii barkoodu u raray tiilay beledkiiye iyadoo badbaadadii horiya beydkii la ammaanay misle ciidda barakaysan yaa abu sufyaan looga dhigay boose barasaad makaad bunuqdiyo baawarka islaam balantiyaa saasuu banuhu ugu bishaareeyey in madiina loo baxay iyo beledul aamiine waxaan idinku boorinahayaa boganay hawshiiya inaydaan bahdilin ciidankii baaqday guulufkii bilaash diintu nooguma imaan amase baashaale nimanbaa naftoodii bacdoo beegay aakhiro ee iyagoo barbaara yay jannada baraf ku dhuugaane beerkii xamsaadoo la cunay uma baroortaane darajaa ilaah ugu bedelaya ay barkanayaan ee balaaxyaaw sow eebbahay uma bishaaray markay 10 sanadu buuxisay oo suubanuhu beydka u cimrooday xaj wadaaci goortuu bogtay oo baaqna maqashiiyey kuwankii ballaaraa markuu bixitimoo laabtay waqti bay isbedelay geeriduu baxay rasuulkii markay boyday faadumo rasuul oo binti xabiiba baariyadii asxaabta maqliyay eelu beydkii iyo budka nabawi hoostiisa baa looga dhigay beere badbaadadii ilaahay buu galay iyo ubax u beeraaye rafiiqiisiiba inoo bedelay baariga ahaayee booshuu la galay nebiga iyo bahalkii diiftiisa budka wuxuu u dheermaday 2 sano iyo bilo gadaashoodee cumar binu khiddaab baa bedelay geesigii baaqa kululaaye gaaladii barwuu weerar oo shacabka buubsadaye
intuu baadilkii suuriyo bilay kitaabkiiyo wuxuu camar binu caas u diray beeshi qaahiro isagana mid lagu gaaday baa boorsitaa dilay ismaan binu cafaan baa bedelay baraka nuurkii iyo burji badanihii baa bedelay seef birka ahaayee khawaarijta ninkii baabaashay oo bidcada laayay oo bilay kitaabkiiyo sunnaha baashiyo wali wabilaahi tawfiiq dambidaaf iyo maqfira ilaaha ka baryaynaa shirkaa waxaa ka baqnaa kii guulad ilahay inuu ka dhigo nabadoonkana kii cadaalada ilahay inuu ka dhigo wabilaahi tawfiiq نبضون محمد خليف جامع محمد حيلة فليتفضل مشكورة وله حفلة فريطان كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وآخرا وحامد سكاله أن لسوكو بكرين إلهي عز وجل وحين يسوون نبيد حفلة عن قروح ربضان ولو على مسار يو نبضون محمد علي شيري حرسي waxaan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo xiriiriyuhu wuxuu yidhi nabadoonka anigu ma ahi nabadoonkii maahi waxaan ahay nabadoonkii hore oo xilka ka tegey soo dhowaada waxaan salaamayaa marti sharafta isugu jidha isimada nabadoonnada waxgaradka ningarboodka dhallinyarada odayaasha iyo wixii la mid ah waxaan si dhow iyo si dheerba u doorannay annagoo aan kala har u lahayn maxamed cali shire xirsi waxaan u soo gudbinaynaa beesha daarood waxaan u soo gudbinaynaa beesha majeerteen waxaan u soo gudbinaynaa beesha cumar maxamuud waxaan u soo gudbinaynaa beesha reer mahad dhammaantiin waan idin salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaamaha xayle haddana waxaan ku soo dhawaynayaa nabadoon cabdishiid axmed jaamac guux. بسم الله الرحمن الرحيم حفلة قروحنا بدن وأنا لكسو قدمين نبضونك حفلة دات كسو غيب قلي دمان وحن كسلامنا سلامة إسلامك سيدا مرتقى حفلة وصو غيب بشير نوسو أجيبتين هدلني أنا وإله ما هذا وين كمان علينا باشا وحن كسيدا ونوغي بقوري يبوشي وحن كسو قدمين نبضون محمد علي الشريع حرسي baanu ku soo gudbinaynaa nabadoonkaas waxaan soo gudbinaynaa dadka islaamka meesha isugu yimid dhammaantiis magac kasta ha lahaadee nabadoonkaasi waayaha nabadoonnada iska badan oo la dooranayo kuma jiro waa nabadoon soo jireen oo jiri jiray mid hadda u horeysa ma ahan nabadoon cusub ma ahan waxaa maya kii shanaad iyo kii lixaad maaqa wuxuu yahay beesha laga soo xulay baanu soo gudbinaynaa insha allah waa dooranay sida waga horeba u sheegay beel baa soo gudbisay uu sheegay magaceeda reer jaamacaadan reer mahad bay usoo gudbiyeen reer mahadna dhammaan daaro camar maxamuud daaroodka jooga meesha dhammaan dadka islaamka baa usoo gudbinaya nabadoonkaasi ma aha nabadoon jifiyeed beesha waa kasoo dhex baxay nabadoon reer puntland weeye nabadoon muslim weeye sida loo sheegay nabadoon aan ka rajaynayna inuu cadaalad dadka iyo dalka ugu shaqayn doono weeye nabadoonkaasaan soo gudbinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baa umahadsan tahay nabadoon cabdishiid axmed jaamac guux. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa nabadoon baashi cabdulaahi bootaan falyatafadal. nabadoonka cusub maxamed cali shire xirsi nabadoonnada kale oo shirka yimid dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka dadkan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib haddee hadalku waa intii odayaashii hore yidhaaheen markaan hal kelmada uga noqdo maxamed cali shire sida loo sheegay waa nabadoon soo jireen oo odayaal hore ka xiganaya xilka hadda loo magacaabay waana nin in muddo a shaqaynayay odayaasha la shaqaynayay iyo maslaxadda iyo waxa odayaashu qabtaan oo qabaa'ilka dhexdiisa ah haddii waa soo gudbinay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay xilka ku asturo dadka hadda ka soo qaybgalay xafladan ama reer puntland ama reer puntlandna waxaan leenahay ninkaasi waa nin la jirrabay
oo u qalma xilka loo magacaabay waa inaad u ducaysaan ajiibtaanna way kolley xafladdu ku saabsan tahay hadalku ma badna dadka qaar baa safarka ku jira oo waa soo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبا أمها سنتاي نبضون باشا عبد الله بوطان. هدنا وحكو سدوينيا نبضون حسين عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. كل عام وانتم بالخير. الى اعماشي اي نسو غدني ايدي صومكي انا كاقبله. اولا waxaan salaamayaa khiyaartan munaasabadan sharafta leh oo nabadoonka lagu dooranayo nala ku yeeray oo u horeeyo nabadoon maxamed cali shire xirsi xogaasha kale khiyaarta aqoon-yahanada dhammaan bulshada qiimaheeda kala duwan oo ka soo qayb galay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan u mahadcelinaynaa reerka tashaday beesha tashatay oo taladooda ururiyey oo qiyaadada sameeyey ama hoggaanka waana shay sunna ah ummadii inay hoggaan leedahay oo talo leedahay sidaas ay noogu soo gudbiyeen baan annaguna u aqbalnay ulana dooranay sida ay wasaayada ugu dhiibteen iyo taladaba annaguna ugu dhiibanay. waa nabadoonkeenii maanta laga bilaabo waa nabadoon haybihii lasoo sheego o dhan u ah waa nabadoon deegaan waa nabadoon soomaaliyeed. intaa kadib hadalkoo gaaban odayaal badan ay u hareen waxaan rabaa kelmad yar oo dardaaran inaan ku daro. nabadoonka jifida soo duubtay oo noo soo gudbisay waa la qaadanay ayagana waxaa shardi oo laga rabaa inay u khidmeeyaan oo adeecaan. khidmaynta waxaa ugu horeyso u mudan in taladiisa la adeeco soo jeedintiisa la maqlo haddii reerku tashadaan oo wax u go-aamiyo u gudoomiyo aan laga daba hadlin taasi waa in la iswaaniyo deed waa bini-aadanka taladiisay ka mid tahay waa reerkay ku socotaa. nabadoonka waxaan leenahay kolley waa lagu eedayn doonaa laakiin laba shay adiguna kaalmayso inaad dul yeelato oo sabur yeelato iyo inaad xaqa ilaahay iyo sharcada ilaahay intaad kari kartid fattaqullaha mastatactum intaad kari kartid inaad u ilato ilaahayna garabkaaga ha galo. waxaan kaloo codsanaynaa odayaal meel u safreeyey oo shir intaan hadda maan ku nimid meeshan ka soo babaxnay waa laydinka soo salaamayay waan laydin mahad celinayay. fasaxna waa codsanaynaa hadda 5 oday oo nala ku soo qaybiyey macnaha rag isku hawlahayo bacdoon socday baan ka mid ahayn inala fasaxna waa codsanaynaa aad baan u salaamaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad waa mahadsan tahay codsigiinina waa laydinka ajiibay wadannada musaafiriinta way bixi karaan idinkoo mahadsan. waxaan haddana u gudbayaa kusoo dhaweynayaa nabadoon xasan daahir seed falyatafadal. awalan khiyaarta xafladan isugu timid waa salaamayaa salaanta islaamkaan ku salaamayaa nabadoonnada ugu horeeyo maxamed cali shire xirsi nabadoonnada kale dhallinyarada bulshada qaybaheeda kala duwan assalaamu calaykum baan leeyahay. bacda salaam hadalku ma badna wixii la oran karay waa la yidhi waan soo dhaweynaynaa nabadoonka cusub waa u mahad celinaynaa xafladan agaasinka fiican iyo sharafka qiyamka iyo haybadda leh. waana qaan anigu maxamed cali shire aqoon dheer baan u leeyahay waa nin ka bixi kara xilka loo igmaday ilaahay ha ku asturaan leenahay. aad baa reerkaas u soo xulay waa ku mahadsan yihiin annaguna waa soo dhaweynaynaa wabilaahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullah. aad baa u mahadsan tahay nabadoon xasan daahir seed. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa nabadoon nuur maxamed axmed falyatafadal. islaamka oo meeshaan isugu yimid oo odayaal leh oo culummo leh oo waxgarad leh oo dhallinyaro leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib xafladan ragga sameeyey oo soo doortay maxamed cali shire waan soo dhaweynaynaa 100% waxaan rajaynaynaa hawl baad u dhiibteen adag inaan looga harin lala shaqeeyo
ninka inta meel lagu magacaabay in laga danaysto ama hadda la dhaliilo kuma wanaagsana. waxaan leenahay haddaad xilka u dhiibteen waa dhib badan yahay in lala shaqeeyaan ku talinaynaa. isagana waxaan leenahay dhib badan baa lagu dhibay, ilaahay ha kuu sahlo. waxay la tahay inaad kaga fawsi fadhid haddaad cadaalad samaysid aad ku fawsaysaa. intaa kadib annaguna waa idinla dooranay waana soo dhaweynaa 100%. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillahi raxmaani raxiim. abshirta allahna waafajiy dambigana allaha dhaaf, dambiga waalidkeena allaha dhaaf, dambiga waalidiinteena allaha dhaaf, intaan inta dhashada allaha cafiyo. sida khayr abshirta kurshada ilaahay raalli ka yahay adduun iyo aakhiraba naafacda ilaahayna ku aadiyo. intaa waa ducadii. kadib halkan waxaan ka salaamayaa nabadoonnada ugu horeeyo nabadoon maxamed cali shire xirsi, nabadoonnada kale oqaasha waxgaradkaada meesha fadhida, abwaanada, ganacsatada, dhallinyarada, dhammaan jamaca bulshada ee xafladda sharafta badan isugu timid. waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib beesha reer jaamacaden oo nabadoonka hadda waxa weeye xafladiisa sharafta badan inoo soo gudbisay, naguna aan soo ajiibnay. waxaan leenahay khayr allaha siiyo. waxa weeye talo hadday beel tahay iyo hadday adduun tahaba waxa weeye hoggaan la'aan ma dhacdo. waxa weeye adduunku madaxa haga, haddii madax hoggaan yahay haddee waxa weeye hoggaan ma jiro. waxa hadda waxa weeye baahideedu timid oo hadda waxa weeye beeshu ay hawl badan u gashay ama isugu taxallujisay ama intaan ay ugu xafladaynayso ama magaca waxa weeye nabadoonka ay u soo gudbisay waxa weeye baahida hoggaanka oo jidho weeye. intaa markii laga gudbo hoggaanku beesha waa lagu magacaabaa, laakiin sida aynu naqaano waxa weeye deegaanka iyo caamka uu joogo oo dhan buu hoggaan u yahay. kii intaas noqdo ilaahay inoo ka dhigo. taa markaan ka gudbo waxaan sheeko ku maqlay waagii macnaha raggii horeeto oo macnaha waxa weeye inaga ka horreeyayoo geedaha ku shiri jiray. geedkaa ninka lagu dooran jiray haddana ha lagu doortee waa ku taya bannaan jirayo. marka waxaan maqlay nin baa hadarku yahay hoggaan ahaan loo doortay, geed baa lagu doortay. guddoonkii markuu qaatay bacdigeed buu allabari sameeyey, culimo iyo rag buu isugu yeera, qur-aan buu akhriyey. goortii qur-aanka la akhriya sidaynu caadada u naqaan waxaa la sameeyaa hadde waa la hadiyeeyaa qur-aanka waa lagu duceeyaayo halkaasaa macnaha la mariyaa. goortii koolkaa joogtay baa waxaa la yidhi waxaan rabnaa inaanu nabadoonka iyo beesha inaan u ducayno. isagaa marka hadeerku iyo fartaagoya wuxuu yidhi ducada ay u ducaynaysaan intiidaan aydaan u bixin baan tilmaamanayaa midda laygu ducaynaya hadeerku iyo iyada igu duceeya. saddex igu duceeyuu yidhi. wuxuu yidhi cayri igu duceeya, ceebna igu duceeya, cadaabna igu duceeya. saddexdaa kelmadood buu soo gudbay. raggii duceeyaha ninkii ugu horreeyey baa wuxuu yidhi ikhwaanow waa reer koonfur weeye, annagu dad islaamaanuna kelmadaha aa sheegteena dad islaamayna kuma duceeyo, dad islaamana looguma duceeyo. ma hadse doonaysid buu yidhi hadarku saddexdaa waxood dariiqa loo maro tilmaantoodaan ku siinayaa buu yidhi. kow haddaad macnaha cayr doonaysid buu yidhi oo aad cood leedahay ceel dushiis deg buu yidhi. waa waagii aan hadda barkadahaan iyo baagagaan iyo waxaan hadda la casreeya baabuurka aysan jirine tubta dheer xooluhu carshintana u dooran jireen, ceelka dheerna ay u soo aroori jireen. ceel dushi deg buu yidhi haddaa cod leedahay adoo cayreeb adaa arki doone. waa qodob. haddaa ceeb doonaysid ibni aadan beri buu yidhi. markaad beryo aadana waxa weeye su-aasheeda hadarku iyo aad baratid qaymo kastoo aad leedahay iyo cod kastoo aad leedahay ceeba kuma dhimana buu yidhi. iyadana guddoon buu yidhi wadadeeda wataa. mahaad macnaha cadaab doonaysidna mu'amir markaad noqotid buu yidhi gar ee xeeg wuxuu yidhi wax ku wad buu yidhi. haddee la koriya markaad waxa weeye aad waxa weeye eex gashid waxa weeye mas-uuliyaddaada iyo hoggaankaagana waa lumayaa, waddadii cadaabtana markaasaad haysaa. horta waxa weeye nabadoonka cusub waxaan uga digayaa waxaa la yidhi nin xil qaaday eed qaad bardu waxa weeye ninku waxa weeye taas waa joogaa. haddii macnaha waxa weeye xilka aa qaaday eedu kugu soo galayso daacadda iyo lilaahi ha kugu soo gasho. laakiin dhinacan kaleeto oo tilmaanta hore aan ka bixiyey waxa yeeshaa digtoono dheer ka yeelo, ilaahayna ha kaa badbaadiyo. taas horta waxa weeye taas intaasaan waxa weeye kusoo gudbinayaa. beesha waxaan leeyahay waxa weeye hoggaanka la doortay saddex qaybood buu leeyahay. xuseen cabdiraxmaan baa taabtay kala soo jeedin guddo
guddoomin guddoonka waxa uu soo guddoomiyo iyo fulin saddexdaba waxa weeye markuu soo gudbiyo beesha macnaha isku hawshay waxa weeye in macnaha waxa weeye xilka iyo hadarku iyo u dhiibato baa saddexdaba laga doonayaa talada wuxuu soo jeedinayaa waa beesha hogaaminta waxa weeye wuxuu macnaha waxa weeye guddoonku ridayna wuxuu ku guddoominayaa waa beesha fulinta waxa laga rabaa ee adimada u noqonayaana waa beesha intaa waxaanu ka codsanaynaa beesha sharafta leh oo qiimaha leh oo xafladan qiimaysay oo intaan isugu yeedhay waxa weeye xilka waxa weeye nabadoon maxamed cali shire xirsi waxa weeye aad u wakaalateen adima ha loo noqdo oo ha lala shaqeeyo oo ha lagu soo dhaweeyo taas waxa weeliya waan sii adkaynayaa waxa weeye ninku markuu waxa weeye hoggaan yahay beesha guud waxa weeye wuxuu rabaa dad u dhaxeeya oo odayaala inuu leeyahay oo jeena oo markii waxa weeye tala ku damaada jeenkiisa u yeerto aw yarada hawshaas inoo tala iyaguna arlada ila kala aadaan iyadoo guddoon ah taasna u sameeyaan leeyahayaan la dayici iyadana waxa weeye intaas aan ku soo gudbinahayaa intaa waxaan raacinahayaa ducadii baan raacinahayaa nabadoonka ilaahay hoggaankiisa ha u sakhiro xilka u qaadana allah ha u sakhiro inta loo wakaaladana waxa weeye ilaahay ha u fududeeyo sida daacadda ilaahay raalli ka yahana waxa weeye ilaahay ha ku aadiyo nasiibkiisa iyo baraantiisana ilaahay haddana ku yahay barako weyn ha saaro taladiisa iyo tayadiisa iyo tawsiisaba mid buraan iyo barako wadata allah ka dhigo beeshoo dhanna mida indhaha ku kala qaado oo iftiin weyn u saara allah ka dhigo ama ahaana deegaanka iyo dalka waxa weeye mid haddana ku yahay hoggaankiisa u saameeyo oo khayr iyo hoggaan ku saameeyo allah ka dhigo allahumma salli ala محمد خاتم الخير مع اليمان فاتحة آمين هذه أربع ما صنتهاي سبطون عاقل عبد الخير يوسف محمد وحيرتها نبضونك وحول من مجران وأنا هديتهاي هدي أباب تهاي دعاء هذا نوحا كسر دوينيا نبضون محمد عبدي آدم لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالشدة ناشا نسوط تمد علماء الدين كي وقع الشلاء قيمة ذكر الدوان قفل بمسك وكي دخل سلامية سلامة الإسلام كأنك فيسه انت كذب إلى محل ناشا نسوق كيني وحان هذا قفر أحسن هاي إلى أن كسر قيب الله حفلة شرفت بضان اللي سواء قاسمي وقدي قوان قابض وسود دياري باشي لغطي انتبع inaan ka soo qayb galno waan ku faraxsannahay oo soo ajiibno bacda salaam bacda kullu maqaam lahu maqal waxaan ku saabsan tahay sida noo sheegay calaamasaarka nabadoon maxamed cali shire xirsi aad noo soo gudbiseen annaguna waa idin la dooranay waxaan marka intaa kadib inaan laba qodob ka hadlo haddii lahay idmo inkastoo waqtigu gaaban yahay iga raalli ahaada labadaa qodob mid beeshaan leeyahay midna nabadoonkaan leeyahay mid beeshaan leeyahay waxa weeye nin la toobayo in la tiifiyo waa laogyahaa la yidhi wuu ogyahay saa u soo dooratee nabadoonka oo coqaash hore u sheegtay baa waxaa loo baahan yahay in la adeeco ulul amriga ilaahay waajibkoona kaga dhigay in la adeeco asaga iyo kuwa kaleba oo laynoo sheegay oo culimmadu inoo sheegaysay buu ka mid yahay khaas ahaan idinkaa xilkan saaray oo xilka u dhiibay waxaa la rabaa marka adeecid kow marka la adeeco waxaa imaanaya khilaaf yari waxaa imaanaya isku tiirsanaan waxaa imaanaya baahi idinku kaliftay inay buuxiso oo marka halkaa ay ka timaado deganaansho iyo qorshe wanaagsan iyo horumar iyo horusocod iyo adduun iyo aakhiraba liibaantood intaa kadib waxaa rabaa qofka mar haddii haddee laga soo koofiyad la saaro in layska sii daayo maahana wuxuu u baahan yahay wixii uu ku joogi lahaa iyo shaqooyinkiisii iyo qorshihii awal uu ku jiray qof muroo u saaxiiba weeye oo wax walba ma qaban karo meel walbana ma istaagi karo suu doona uma shaqaysan karo waa jilib xil weeye idinkaa laydinka rabaa coodkiisii iyo wixii uu ku shaqayn lahaa iyo fanku ku shaqayn lahaa ila idinkaa arrimihiisii kasoo fadhiisiya waxaad tirahdeen koofiyad baa ku saarana halkaa fadhiiso wixii nabadoonada la midka arlada jooga ay ku shaqeeyaan inuu ku shaqeeyaa la rabaa wuxuu soo qaadi lahaa inuu idinla soo noqdaa la rabaa wuxuu ku bixin lahaa baa laydinka rabaa oo meeshaan ka lahayn in la toogay in la tiifiya waa ogi waxaa la rabaa go-aanuu qaadanayaa nabadoonku ummad buu go-aana la soo qaadanayaa dowladuu go-aama la soo qaadanayaa ergaa u imaanaysa magaciinii buu huwan yahay waa koofiyadii reerka laga soo geli lahaa wuxuu u baahan yahay go-aankiisa ou qaato oo uu idiin keeno
iyo talooyinka iyo arrimaha uu ka shaqaynayo in lagu adeeco oo looga dambeeyo oo lagu raaco. waxaa la rabaa Soomaalida waxay tiraahdaa guddoontooda guuguu. waxaan marka leenahay insha Allah saa u soo doorteen oo ugu kalsoon tihiin inaa haddana insha Allah inta idinka dhiman aad ku dhammaystiri doontaan oo aan hadda idinka waxay idiin sheegayna. waxaa la la dooray waa door laakiin kii doortaa kasii dooro marka saa uga sii dooroonaydeen insha Allah inaa si loo jibaadhaan baan idinka rajaynaynaa. nabadoonkana waa asiibteen insha Allah annaguna waa la shaqaynaa saa noogu keenteen baa annaguna insha Allah waa adeecaynaa ulana tashanaynaa ulana shaqaynaa insha Allah ka nabadoon ahaan. nabadoonka waxaan leeyahay nabadoon Allah ku barakeeyo meeshii shalay aad joogtay ama saaka aad joogtay ama daraad aad joogtay maanta ma joogtid. waa tii sheekhu inoo sheegay mas'uuliyadda qofka saaran cuqaashana waatay ka hadlaysay arrimaha dhaqanka oo lagaga soo horeeyay. waxaan leenahay waxaa tahay insha Allah qof la soo xulay oo loo soo doortay dhaqanka Soomaaliyeed reer Puntland reer Nugaaleed reer Buurtile iyo qaas ahaan reerihii hadda hoos loo sii sheegay oo haybtaha. waxaa laga rabaa insha Allah inta inaad isku haysid inaad cadaaladda ka bilowdid inaad wadatasha ka bilowdid. nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa la amray washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakkal cala Allah. waa waajib inaad wada saaran qof kastoo mas-uulana saaran inuu dadka la tashado. Soomaalidana waxay tiraan kale taliya jiitaaya haddee waa garanaysaa waxa laga mariyey. waxaa la rabaa kale taliya jiitaaya inaad noqon talada dadkii waxa weeye kuu soo xulay inaad wax ka siisid insha Allah. waxa la isfaray fardi laguma noqdaa la yidhi waxay la tahay lagu soo xulaa qabtaay waa hadda intaana waa una iska hadaltiro aan ku leenahay insha Allah inaad adiguna haddii ilahay inuu istoosisid oo daacadda ilaahay ku shaqaysid oo aad nabadoonnada kala dhaqankaaga horreeyay la tashatid beesha iyo guurtida la tashatid. markaa insha Allah talada waa asiibaysaa waana ku hagaagsanaysaa. adigana intaasaan ku leenahay Allah kula gargaro xilka Allah kugu asturo adduun iyo aakhiro ilaahay eexna ka ilaasho talada teeda toosan Allah ku waafajiyo. intaasaan ku leenahay aad iyo aad baa mar labaad iyo mar saddexaad u salaameynaa beeshii sharafta lahayd iyo guddiga qabanqaabada xafladan quruxda badan soo diyaariyey. saas annagoo nabadoonka idinla qaadanay lana shaqaynaynaa insha Allah kulligeena guud ahaan liibaan adduun mid aakhiro baa ilaahay ka rajaynaynaa. sharad daarin Allahna ka xiro khayraad daarin Allahna siiyo acmaasha wanaagsaneed ee tobankan bari lagu sheegay la soo maray iyo kuwa ka dambeeya Allahna waafajiyo. degmadeennana mid waxa weeye liibaan iyo adduun iyo mid aakhiro Allah u kulmiyo cudurrada iyo waxyaalaha munkaraadka iyo waxyaalaha amni darrada kulli ilaahay ka najiyo Allahna ka dhigo kuwa isku tiirsan oo isku tiirsanaada adduun iyo aakhiro isku liimaano jannada ku kulmasa halka ugu kulma Allahna ka dhigan leenahay. wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبضون شيخ محمد عبد آدم haddana waxaan ku soo dhaweynayaa nabadoon maxamed barkeen magacina waa ku dhammaan waan salaamaya ummadda meesha isugu timin odayaasha waxgaradka kale dhammaantood waan salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. islaamkaan kusaya salaanka bacdigeed muhiimadda meesha la isugu yimid waxa weeye xalfadda ballaaran oo quruxda badan loo dhigay waa nabadoonka maxamed cali shire. maxamed cali shire beeshii soo gudbisay waa la qaadanay waana la shaqaynaynaa waana soo dhawaynaynaa. ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa xilka loo doortay in ilaahay u fududeeyo oo waxa weeye kuwii cadaaladda kii cadaaladda wax ku naqa oo cadaaladda ku shaqeeya oo deegaankoo dhan waxa weeye ilaahay subxaanahu qaadir uu ka dhigo cadaalad kaga shaqeeya laguna daydo. ilaahay taasaan uga rajaynaynaa. beeshana waxaan leenahay nabadoonka waxaa laydinka rabaa inaa adeecdaan xilalka la magacaabo labay noqdaan ku shaqaysa adigu annaga noogu shaqee. haddii ninka la maalgeliyo talada hareeraha laga taagan yahayo lala socdo go'aankiisa la adeeco waxay noqonaysaa annaga noogu shaqee. laakiin waxa weeye haddii intii xilka loo magacaabo laga haro darbiyadana laga caayo wixii uu soo jeediyana lagaga hor yimaado waxay noqonaysaa ku shaqaysa. marka udambeysa waxaa laga yaaba xilka laftiisa inuu ka cararo ama in laftiisa la cararo. marka waxaan leenahay ha lagu adeeco hana lagula shaqeeyo garbahana ha laga istaago. qof kaliya waxba ma qaban karo. qof kaliya waxa weeye waxba ma qaban karo. waxa qaban karo dad isku duuban talada kala qaata go'aanka waxa weeye nabadoonka go'aan kaliyu leeyahay. go'aanka waxa weeye ku adeeca. aad iyo aad baa u mahadsantihiin nabadoonka iyo kuwii ka horreeyay waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu xilkooda u fududeeyo
kuwii cadaalad naqana ay noo noqdaan aad iyo aad baan inila qaadanay 100% aad baan u mahadsantihiin waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka ugu horeeya nabadoonku nabadoon maxamed cali shire iyo dhammaan nabadoonnada kasoo qaybgala shirka waan ducaynayaa anugu qaalidii maadaama laygu amar aan ahay waxaan ku ducaynayaa insha allahu tacaala in ilaahay u fududeeyo xilka loo dhiibay nabadoon maxamed cali shire xilka loo dhiibay ilaahay ha u fududeeyo dembigana ha dhaafo dembiga waalidkana ha dhaafo dacwaadkeena la aqbalo acmaalihii aan soo qabanay ilaahay naga aqbalo dhammaanna waxaa hadalkii nuxurkiisa waxaa dhameeyey sheekh cabdinaasir oo wacdigii iyo waanadii ku saabsanaa waxa uu ka qabo sharciga islaamka hawsha inuu u fadhino marka ilaahay insha allahu tacaala ha inoo aqbalo dhammaan inta xilka hayso nabadoonnadana iyagana allah u aqbalo allahuma salli calaa sayidina maxamed faatix tahay sheekh salaad jazaak allah haddana waxaan kusoo dhaweynayaa nabadoon maxamed xaaji maxamed dababaati waynu ku jirnaa shirka maragan waa iska dhammaan daclihiisina la fahan bayna tahay waxaatan hadal oo laaban oo haddaan u ararnaya ama soo samaysteen sideeda ma jiraanin laakiin maxamed cali shire in aqoon hadda aan u leeyahay ama sheeko badana ka haya weeyo aad baan ula dooranay beeshii soo dooratay waana la dooranay waa wada qaadanay ilaahayna ha ku asturo xilkaas waxaan leeyahay lala shaqeeyo oo waxaa lala qabto oo yaa laga sii jeedsan aniga hadda magaca waa igu yaalla qolada aan haatan magacu aan u saarahay isma dhaqaan say u badan yihiin isma dhaqaan xagga isma dhugin wax fiicanna ma aha saas waxaa wanaagsan in la wada shaqeeyo oo lala socdo oo meeshii uu ka licsan yahay laga tiriyo ayaa wanaagsan marka asagana khayr baan ugu ducaynayaa waxay la tahay ducadu iska badan tahay oo bil carabiga haddaan hadda ku duceeyo dadkeena ku adkaataan ka yaabaya bismi illaahi araxmaan araxiim اللهم إنا أسألك بالله في أراك يا إلهي فنسألك يا الله وبالباء بهاك يا بارو يا إلهي فنسألك يا الله وبالتاء توفيقك يا تواب يا إلهي فنسألك يا الله وبالثواب ثوابك يا إلهي فنسألك يا الله وبالجيم جلالك يا جليل يا إلهي فنسألك يا الله وبالحلم حلمك يا حليم يا إلهي فنسألك يا الله وبالخير خلودك يا خالق يا إلهي فنسألك يا الله وبالتالي دوامك يا دائم المعروف يا إلهي فنسألك يا الله وبالتالي ذكرك يا ذي العلي يا إلهي فنسألك يا الله وبالتالي رحمتك يا رحمن يا إلهي فنسألك يا الله وبالتالي زلفك يا زعيم يا إلهي فنسألك يا الله وبالسين سلطانك يا سيدي يا إلهي فنسألك يا الله وبالشين شكرك يا شريف يا شافي يا إلهي فنسألك يا الله وبالصادي صدانيتك يا سبت يا إلهي فنسألك يا الله وبالضيق يا ضامن يا إلهي فنسألك يا الله وبالضيق ضلوعك يا ضيق الثناء يا إلهي فنسألك يا الله وبالضيق ظهورك يا ضائم يا إلهي فنسألك يا الله وبالعين عزك يا عزيز يا إلهي فنسألك يا الله وبالغير غفرانك يا غافر يا إلهي فنسألك يا الله وبالفاء فردانيتك يا فرد يا إلهي فنسألك يا الله وبالغاف قدرتك يا غادر يا إلهي فنسألك يا الله وبالكاف كبرياءك يا كبير يا إلهي فنسألك يا الله وبالغام لطفك يا لطيف يا إلهي فنسألك يا الله وبالمي ملكه يا مالك يا إلهي فنسألك يا الله وبالنور نصرتك يا ناصر يا إلهي فنسألك يا الله وبالولايتك يا ودود يا إلهي فنسألك يا الله وبالهاي هيبتك يا وهاب يا إلهي فنسألك يا الله وبالأمل في لا إله غيرك يا إلهي فنسألك يا الله وباليا يسرك يا ميسر كل عسير يا إلهي فنسألك يا الله اللهم إنا أسألك يا من يسر كل عسير ويا من يسر كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا جابر كل كثير يسر علينا كل عسير وإنك تيسر العسير عليك سهيل يسير وبه نستعين بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى فاتحة آمين يا رب العالمين آدي آد بهما سنتهي نبضون محمد حاجي محمود جزاك الله خير الجزاء دعانا الله نقبله حتى وحن كسر دوينيا وحفلة إنه صاحرية نبضون كعصوب نبضون محمد علي شيري فليتفضل مشكورا تمام xafladan quruxda badan ergada isugu timid oo ay ugu horeeyaan isimada nabadoonnada ganacsatada culumada dhalinyarada qaybaha kala degan oo bulshada saxaafadda gabdhaha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahad celinayaa xafladan inta fadhida
iyo intii ka soo shaqaysay awalan waa aakhiran mahad ilaahay waa leh mahadda labaadna idinkaan inii celinaya waxaan leeyahay ilaahow ducada la ii duceeyey iyo jifidii soo gudbisay iyo maanta meesha ay keeneen ilaahow ii aqbal baan leeyahay midda labaad hadal badan dhihi mayo anigu waxaan aaminsanahay inta laga sheekeeyey in soomaali waa dad muslina shareecada islaamka inay ku dhaqanto qofka khaldanna lagu qaado qofka dulmadna lagu xaqsiiyo baan aaminsanahay dowladda inay hogaaminaysa soomaaliya iyo puntlandba ilaahay inuu shareecada islaamka ku dugo baan leeyahay waxaan idinka codsanayaa jifidii way soo waanisay waa ii soo ducaysay waa garab taagan tahay ugu horeyn ragga maxaad xayre ugu horeeyo cabdirashiid axmed jacbul ku jiro baashi dhalaal ku jiro ilaa daarood ilaa muslimka reer puntland iyo soomaaliyaba degano ay horgooyeen inay la shaqeeyeen baan ka codsanayaa waxaan ballan qaadayaa waxay iga khibrad badan yihiin inaan uga dameeyo wixii qaladoo aan leeyahana aan qaato waan inii mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad khudbad badan oo halkaan iiga furan ma jidho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu